waxaan rabnaa annaga haddaan tagno xafiiskii maamulku in las ogolaado maamulku waxaa ugu sarreeya waara haddii inta ka hooseysa ay dad dhameeyaan kolta hadduu yidhahdo waxaas ma jiraan bariga asay naftiisa meel ku daaban yahay waa nin meel ku daaba يعني قلت ماشي maamulka asaga as mas'uulka ka ah hortiisa yani dad kale ka furfurteen waxa laga yaabaa inuu diida waxaan rabnaa dadkaas kolta inaad idinka naaga horeysaan war dadkaana yimid oo xisbigan oo waxaan rabaa inaad samayso mar rabnaa in hadhowdii laba minuut inta la soo diro yani la yiraahdo waxaad meesha ku haysid maxay tahay maba oga madaxda yaa la soo diray inay ka dhicin aad noqotaan dad la garab taagan dad anaa xisbiga aan dhahaynin laakiin وردتكان سنة إلا السعودان هدف كان يوتان وأنا حزبيتي ديوان بالسنة من قارك هاي حق والكلية dadkii ugu soo hidwaa idinkana madaxdii aad tihiin waa adinkeena xubraashadaas iyo way qabaan inaad hawshaas kolka wax ka qabataan waan ognahay hadda idinka naftiina meeshaan joogo xisbiyad ayaa lagu barbaranaya waan ognahay xisbiyada ay kala jirowhayaan xisbiyay ku kala jiraan waxaa jira xildhibaanadii yaaba xisbiya kala galgalay idinkana waa sidoo kale marka sidaas oo kale tihiin ninkii xisbigiis asaga ku jiri hadduu tago waa soo dhaweynaa xisbigiis ku jiri haddaas yimaadana maarata oo mid kale u yimaadana intuu lugtu ku riixi karo waa ku riixa oo yani madaxdii asaga markaas ay isku barnaamijka aan waaleeyahay wareeda axmed ma sheegaysa axmedna ma socdaane dadna waa socdaane sewa jooji celi waa isleeyahay inaad taa ka adnaa noqotaan maalinkaas walaas waa saarina sheekh axmed وأسألكينا أدو الله تعالى كذبه يعني هجاجس كم بيحد دونا يعني مركي أي نقطة إلا بحنا هل كان على بيحد دونا هل كان أمر كبير قانون دونا هل كان على تشد دونا هل كان فاتح هذا الجمران دونا هل كان على كذب دونا عدالة يكون دين من الهبل البريء آلي هبل يهبل آلي على كذب دونا وابع لين هل كان على كذب دونا وابع حين واسوح لين هل كان على كذب دونا نقول ما صحيح وحرمنا كاشين كذي كان حد يستجرب اللي بعدنا دي أدمارتها يعني شغلوك أيضا إحنا فيديو كرهت وسوي إيز وايسا وأنا مدواي أذوق وأنا مدواي كذا كذا هاي دي شكل مدواي إيه إسكندر إيش ولا ها إسكندر هذا إيه دواي سو أنا بقول لك إيه من نايمو دواي اللي ديد لنا نكيرا اللي ديد له marka yani waxaan war isku tagay doona haduu alla raali ka dhigo waa ku wada tashan doona waa ku wada sheekeyn doona waxaan rabnaa hadda waxaad qaadaysaa adiga warqadaad qaadi dayarada raaci murta annaka waxaan dhihi karnaa mariyo gulfiya iska xirin oo aan isbiimayna iska dhihi karnaa hadda lacag haynin moogta adiga waxaan rabnaa foomku wax lagu buuxin lahaa waxaas dayarada raaci inaad loo sii qaadido xagga loo sii dhigo bixi cidda oo baadiye ka yimaadana oo loo sii dhigo hawsha basaas uu sii socdo adoo marin inaad bixinto bari weyn aan weyn markii islaamay waa aan ku leeyahay marka bixis waxaan rabnaa inaad wax qaadid aad wax la'aan bixin marka taas insha Allah waa ka soo dhamaysan waa kii doonta hadda Allah taala ka dhigo marka waxay leedahay wadada ama wadada doorna waa la gaaray oo waa la diray hadii wax kala aan sii diiday oo sii diiday sifanin oo hadlay oo la hadlay waxaan horyaala shaqooyin badan u baahan qadadir u baahan dhaqaale laakiin howl kastaba haddaanan iska wax u qabso lagu bilaabin ma hirgalo shaqo kasto marka aad aragtid inuu hirgalay waxaa lagu bilaabay voluntary wax la yiraahdo ama iska wax u qabso la yiraahdo sidaan hore iskugu sheegnay meeshan shaqo badanaa taalla qeybo badan oo la abuuray u baahan in rag loo helo loo dhigo howlahaasna waxay u baahan yihiin dhaqaale laakiin waxaan istusnay in la helo dad oo voluntary ah howlahaas naga qaabila iska wax u qabso ku sameeya laakiin mustaqbalka haddii ay timaado in loo baahdo guddiga doorashada oo kale ama dhaqaale meelaha kale laga helo shaqaale looga baahdo iyaga in laga bilaabo la yiraahdo
iyaga xaq u lahaayeen haddaanan hawshaas aan soo sheegnay oo hore usoo sheegnay aanan la fulinin uu ku ekaado hadal keliya xisbigaan maxirgalayo sababtoo ah waa dhaqaale kastoo hadda la siiyo walaa haddii hor yaalla yani ma wadi karo laakiin haddaan hayno dhalinyaro aqoon leh rag iyo haweenba inay dalkooda u hibeeyaan aqoontooda dadkooda u shaqeeyaan insha allahu tacaala waa u gudbaynaa caqabo kasto naga hortaada marka waxaan qabsanaa kalamihii hore la galay oo dhinaca shaqaalaha xisbiga si xisbiga u noqdo mid furan joogto ah aasan noqonin keliya khamiis iyo asniin in la helo sida haddii wasiirka noo sheegay berito waxaa laga yaabaa dad inay imaanaan haddii ay dadka imaanaan dhahno khamiista leh hanoo yimaadaan ama asniinta leh hanoo yimaadaan soo dhib ma ninkii aan raanana beri meeshaas hadda joogana haddii asiga jeebkiisa waa nin nool ku rabo waa run laakiin haddaan la sabrin waxaa waaye hooshii uleysay noqonay marka waxaan rajeynaynaa qaybaha sectionyada laga qaybiyey oo loo kala qaybiyey qaabka xisbiga u shaqayn doona xafiisyadiisa shaqaalihii aan codsanay in la keeno iyagana aniga imtixaan inaan ka qaadno aqoon keligiis wax ma tarayo shaqada waa gaar waxbarashadii aad soo waxbaratayna waa gaar waxbarashada waxay ku fududaynaysaa wixii meesha yaalla markii laguu sheego qaabkiisa in isla markiiba aad fahmi karto laakiin nin kasta waa markii oo jaamacadda ka soo baxo laguma jaamacad markii lagu dhaho ama dugsi sare lagu dhaho waxaa ku helay meega practica maxaa practica aad soo qabatay macnaha waxaa practica aad soo qabatay ayaa ka wada waxaa laga yaabaa inaan weligiisba iskool tegin laakiin shaqada practicada shaqo kusoo bartay rag badan oo marka aqoon leh ayaa ninkaas uu ka fiicnaana marka waxaan jecelnahay iyada aqoon leh inay meesha yimaadaan annagana inaan seminaar aan siino wax meesha yaalla ila meeshaan documentiga taala documentigaas ninka aqoonyahanka asiga ma yaqaan documentiga meesha yaalla ayaa la rabaa in la tuso dastuurka xisbiga in la tuso heer hoosaadka xisbiga in la tuso barnaamijka xisbiga in la tuso maxaa la yidhaahdaa higsiga xisbiga in la tuso intaas waxay u baahan yihiin marka nin aqoon leh inuu markii la tuso isla markiiba waa fahma noo ku bedela marka practice ayuu ku bedela marka waxaan leenahay aqoonyahanka waa soo dhaweynayna horta sidaas marka aqoonyahanka markuu noo yimaado waxaan rabnaa hawshaas inaan fulo teda kale asniintiina daaftay waxaan ku heshiinay annaga madaxda xisbiga oo guddiga fulinta oo ka mid yahay inaan dastuurka inaan barano wax meesha documentiga meesha yaalla documentigaas meesha yaalla iyo qaar ka mid ah oo haraysan in la hareeyo guddiga doorashada loo hareeyo maaha waxaa loo baahan yahay dhammaanteynaba inaan korka ka sheegi karno marka oo aad dib maxaa la yidhahda seminaarada ama goobaha la isugu yimaado inaad ku hadli karto maxaa la yidhaahdaa fikirka iyo mabda'a iyo higsiga xisbiga kuu qoran inaadan caqligaaga la keliya ku abirin waxa aad sheegaysa inay ahaadaan wax oo xisbigaaga u qoraya marka taasna maxay ku imaan kartaa inaan akrisano maalin kasta inaan akrisano marka asniinta waa isu sheegnay arrinta kor looma qaadin waxaan rabnaa maalin aniga noo gaara inaan u maanayno inaan barano wax dokumentiga meesha yaalla dokumentiga meesha yaalla inaan barano heer hoosaadka in la barto dastuurka in la barto maxaa la yidhahda mabdaa maxaa la yidhahda qaabka looga soo qaybgalaya in la barto qaabka looga baxa xisbiga in la barto
سياسة حزبك إلا برتو أركتنا حزبك إلا برتو وكل والدوكومنت ماشي يا الله وحو عقلي قاعد تكيري كارتين تلقي اسمه marka kuwaas dhan waa dokumenti ku baahan in aan baran in laga qaato guryaha la geeyo ma waa dokumenti xafiis u leeyahay maxaa la yidhahdaa library oo kale inaad imaan karto aad maanta akhriso dastuurka akhriso meeshaas aad imaanaysa oo qaadanaysa dastuurka waa akhrine meeshaad ku egta waa calaamadaysa maalinta intaad timaadid meesha aad calaamadaysa aad kasii bilaabo iyo mid oo anaga marka guud ahaan saan u imaano 10 daqiiqo ama nus saac oo kale lanoo aqriyo berina calaamada saaro haddana hore in loo sii daro aniga marka saas ayaa fikirkaas ayaan idiin soo jeedin lahaa insha allahu tacaala waafadii hadalka saacadna waa la joogaa waxaan leenahay insha allahu tacaala haddaysan su-aal badan jirin shirka waa noo xiran yahay iyo horihii kale oo diiwaangelinta iyo wixii kale oo alla sii galo salaadana aan soo tukano haddaysan waa jirin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala صلاة